markii ugu horreeyey qarnigiisa 20aad bilowgiisii soo waariday Faransiiska iyo Ingiriiska ka soo waariday ay magaca al-cilmaaniya u bixiyeen iyagoo leh waxay cilmi bay ku dhisan yihiin sidii hanti wadaagii la oran jiray hanti wadaagii cilmiga ku dhisan oo kale صح horta asalkeedii halkaas ka timid marka waxaan doonayaa ilaa 4-5 qodob inaan ku soo koobo marka hore islaamka يعني علمه runtii wuxuu aasaas u yahay islaamka quraanka hadaad eegto aayaadkii ugu horeeyay soo degay nabiga sallallahu alayhi wasallam jibriil markuu soo dejiyay iqra bismi rabbika alladhi khalaq ilaah subhanahu wa ta'ala insaanka abuuray cilmigaas maaragtay yani baray allama al-insana ma lam ya'lam marka cilmi iqra baa lagu bilaabay akhri rasuulkuna waa ka oranaya marka sallallahu alayhi wasallam maana biqari way waxna ma akhri jirin waxna ma qori jirin markaas dhowr jeer jibriil markuu ku celiyay waa ka marka ilaahay iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلهي سبحانه وتعالى وكعلم برا إنسانك marka cilmigu aasaas buu jawaabo aayaadkii ugu horeeyay soo degay quraanka marka khulaasada qodobka labaad qodobkii hore waxaynu ku qeexnay cilmaaniyada waxay tahay qodobkan labaad khulaasadiisu waxa weeyaan cilmigu yani aasaas buu islaamka cilmigan waxaan ka hadlayaa anigu maadiga ah ee maanta aynu haysano dadka muslimiinta ah baa runtii yani budig u noqday waxa jira ahdi ama casri suurtii caalamka soo martay kamida oo loo yaqaano al-casru al-dhahabi casru al-islami al-dhahabi waxay yiraahdaan the golden age of Islam Islamic civilization xadaaradii islaamka waxa weeye qarnigii 7aad ee miilaadiga ahaa ilaa qarnigii 15aad ee miilaadiga oo taqriiban ilaa 800 sanadood 800 sanadood ay dadka muslimiinta yihiin cilmiga maanta aynu haysano ilaa waxaan imanka technology-ga aynu naqaanaa cilmigaas uu ka soo baxay kombiyuutaradan iyo laydhadhkan iyo waxaan aynu haysano dhan telefoonada baabuurta diyaaradaha technology-gaasi cilmigii uu ka soo baxay waa cilmigii dadka muslimiinta ay aasaaskiisa dhigeen xisaab lahaa physics lahaa cilmi falak lahaa cilmi طبiga medicine-ka lahaa chemistry-ga lahaa pharmacology-ga lahaa dee haba ka qabanin xisaabaadka meel kasta ilaa taqriiban waxa weeyaan dee ilaa 80 caalim oo culimadii islaamka ee xagga science-ka ayaa dawinan oo qoran iyo wixii ay contribution sameeyeen oo xataa gaalada qaar badan oo kamid ah ay qirayaan reer galbeedkooda maaragtay bugaagtii ay qoreen marka dadka muslimka horta cilmi looguma faani karo runtii maantadan xataa lafteeda si kastay u daciifeen meel yani aad u fiican bay kaga jiraan yani khaasatan wadamada مثلا Mareykanka oo kale Yurub meelo badan dad badan oo scientist oo engineer oo dhakhtar oo cilmiga heer sare ka gaaray ayaa jooga qaarkood ilaa ay ka gaadheen heer ay Nobel Prize ku qaateen fields-koodii ama majaalaadkay wax ka maaragtay ka daraasaynayaan ma sha Allah horta marka taasina noqdada labaad waxa weeyaan islaamka iyo cilmigu ma kala baxsanaa haddii dadka qaarkood maanta ay u haystaan مثلا in islaamku ka soo horjeedo cilmiga xadiidka cilmigan aynu naqaano cilmiga dabiiciga ama aynu science oo naqaano iyo wixii dee science-ka soo raacay technology engineering iyo arrimahaas haddii ay dadka qaarkood u haystaan inay kala baxsan yihiin waa uun yani qusuur ama gaabis ka yimid xagga fahamkooda oo muddo dheer oo insha Allah in yar baan ka taaban doonaaye ayaa adoo ilaa taqriiban 300 sano ka hor meelahaas markay dadka muslimiinta bilaabeen inay ka gaabiyaan yani cilmigii oo khumuul fara badan ku dhacay ayaa waxay keentay in jid kale ay u leexdeen qaarkood xagga suufiyada u leexdeen qaarkood khuraafaad kale qaarkood oo dabeetana ay ka gaabiyeen aqoontii yani aanay halkii ka sii wadin
oo dad kale ay kala wareegeen ay ka qaadeen oo halkaan maanta aynu joogna ay soo gaarsiiyeen. Marka qodobkaasi waa kaa. waxaa iyaduna aada muhiim u ah runtii si aynu u fahamno asalka cilmaaniyada halkuu ka yimid. waxaan idhi qarnigii 7aad ilaa miilaadiga ahaa ilaa qarnigii 15aad ee miilaadiga taqriiban waxa weeyaan 600 iyo waxoogay ilaa iyo 1400 iyo aduu 1400 dhammaadkii 1400 waa qarnigii 15aad. cilmigaasi intiisa badan oo ama in badan oo ka midii waxay taalay Andalus oo dadka muslimiin xadaaro aada u sarreysa intii aan Andalus dhulkan Andalus la yidhaha marka Spain iyo Portugiiska Portugal aan lagala wareegin ama aan laga qabsan oo dee gaaladu aanay ka qaadan. marka reer Yurub halkaas iman jireen oo ay daraasaad ka samayn jireen oo ay cilmiga ka qaadan jireen oo intay luqada carabida bartaan dabeetana wadamadoodii ay ku noqon jireen oo ay halkaa jaamacadahooga Ingiriis oo Faransiis oo Jarmal oo halkaas ay maaragtay. marka waxaa jira isbedelka weyn ee cilmaaniyadu halkuu actually ka yimid waxa weeyaan daraasaadkii ay qaateen waxaa ka mid ahaa falsafadii Ibn Rushd ninka la yidhaahdo Ibn Rushd macruufka kuwa fiqigana macruufka kuwa maaliki buu ahaa fiqigan kitaabkan la yidhaahdo بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الكتاب كما يسمونها شخصي فقيهنا ها مالكية فيلسوف نوها رنتي فيلسوف تقريبا مركز اللي وحوان علم كان مانتا إنه نقانو فلسفية أما علم ماركت يعني علم الكلام كاي علماء دي هورنتي أي آد معروف ماركتي وجوها من قرقي لبي طبنات بنولا وقيب كمدا عصري لو بحي عصر في جولدن ايج عصري ذهبي هاي dadka muslimiinta ay lahaayeen ayuu kamid ahaa markii hore yani Yurub waxa saydareynay dominant ahaa oo saydarada lahaa kaniisada iyo boqorada kaniisada raacsan marka kaniisada ayaa xoog ku lahayd. marka culumtaasoo dhan intii hore way hortaagnaayeen oo way la dagaalameen oo way maaragtay caayeen ilaa heer ka gaadhay boobkii berigaas ninkii Roman Catholic Pope-ka u ahaa oo waqtigii Ibn Rushd inuu yidhaahdo wuxuu fatwooday in la nacdalo way la dagaalameen isku dayeen inay maaragtay joojiyaan laakiin markii dambe way joojin kari waayeen oo cilmigii baa ku fiday. nin Ingiriis oo Francis Bacon la yidhaahdo ayaa qarnigii 16aad aakhirkii soo geliyey falsafadii Ibn Rushd Yurub. waxay falsafadaasi marka qarnigii 16aad waa 1500 iyo xoogay wax yarka waa Copernicus iyo Galileo iyo waqtiyadoodii weeyaan. sayniskiina isla markaa falsafad kaliya maahay sayniskiina uu soo galay astronomy baa soo galay waata kaniisadu waxay bilowday markaa inay culimadii sayniska ay layso way gubeen baxata qaarkood ay la dagaalamaan way joojin kari waayeen laakiin cilmigii ka soo galayay ka soo burqanayay dhinaca iyo Spain iyo Portugal yani waxa berigaadee ay loo yaqaanay Andalus dadka muslimiinta way joojin kari waayeen. marka taa cilmigii iyo falsafadihii Ibn Rushd markii la isku daray waxaa dhashay wax loo yaqaano yani casriga waxgarashada ama iftiinka enlightenment waxa weeyaan light bay ka timid light waa sida iftiinkan oo kale. marka waa casru tanwiir baa dhacay maskaxdii baa u furantay khuraafaadkii kaniisada iyo wixii maaragtay masiixiyada iyo wixii oo dhan bay ka xoroobeen. waxay barteen sida loo doodo waxay barteen yani sida maaragtay loo baxthi loo sameeyo research loo sameeyo sayniskii waxay isu galay falsafadii dabeetana waxay dhashay revolution bay markaa dhalisay loo yaqaano casrigii enlightenmentka waa taariikh dheer runtii in qofkii doonaa uu maaragtay muraajacayn karo. marka af Soomaali waxaan ku tarjumay furfurnaanta maskaxeed casrigii furfurnaanta maskaxeed baa
ayaa yimid ayaa dhashay sax waxay ku dhiiradeen kaniisaddii inay la doodaan waxay ku dhiiradeen inay yani caqaa'idkii kaniisadda doctrinkii kaniisadda ay la doodaan oo ay naqdiyaan oo ay ka hor yimaadaan waa qarnigii 16aad qiyaastii marka taariikhda marka ayna qarnigii 15aad ilaa qarnigii 16aad waxaa kaloo iyadoo saa ay tahay ayaa haddana waxaa bilaabmay xaggii siyaasaddii scienskii iyo philosofigii waxay gogol xaadh u noqdeen isbeddel ijtimaaciya isbeddel fikradeed baa yimid dabeetana waxaa yimid markii dambe isbeddel xaggii yani xukumkii iyo boqorradii baa la challenge gareeyey markaa dabeetana waxaa dhacay in thawraad ay dhasheen waan ka sheekeyn doonaa insha allah gadaal marka waxaa jirta odhah loo nisbeeyo masiixiyada oo adugu dadku dee siyaalo kala duwan bay runtii u fasiraan laakiin waxay ku taallaa bibleka matthew 22 waxay leedahay qaysar wixii uu leeyahay qaysar u daa ilaahay wuxuu leeyahayna ilaahay u daa maa lilaahi lilah wamaa liqaysar liqaysar ingiliishtana waxaa tarjumada lagu tarjumay therefore render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's wixii ilaahay leeyahayna ilaahay u daa marka waxay aduu dadka qaarkood scholarskooda qaarkood yidhaahdaan arrin dhaqaalaha ku saabsan ayay ahayd oo cashuurahay diidanaayeen kaniisadu dabeetana waxay keeneen fikradan sida imanka sekadeen innaga sekada aynu u ururinoo kale ayay cashuur kaniisaddu urursan jirtay sekadu waxa weeyaan waa mashruuc ka duwan aada uga duwan taasoo insha allah taariikh mar kale laga hadli doono dabeetana dood bay ka keeneen waxay leeyihin markaas yani oraahdan Caesar wixiisa u daa ilaahayna wixiisa u daa oo mar hore actually ahayd ku jirta bibleka waqtiga imika aan sheegayo aada uga horreysay ayay soo nooleeyeen dadka qaarkood ay leeyihiin diinta iyo dowladnimada hala kala saaro oo markaasaa dabeetana siyaasado cusub baa yimid waxaa yimid dhaqdhaqaaqyo cusub waxaa kaloo yani taa runtii sabab u ahaa kasoko falsafadihii isbedelay iyo cilmigii sayniska ah ee isbedelay cilmigii sayniska ahaa qarniyadii 17aad 18aad waxaa ka dhashay technology waxaa ka dhashay maalan industrial revolutionka waxaa loo yaqaano athawra sinaaciya yurub waxay gashay waqti casri loo yaqaano casrigii renaissanceka ama fufka casru nahda carabida loo yaqaano ama af soomaaliga fufka ayaa loo bixiyey renaissancena waa la yidhaahdaa oo waxaa dhashay sayniskii wuxuu dhalay technology mashiinaa soo baxay shaqadii baa isbedeshay dadku say dabeetana waxaa isbedelay structurekii yani ama dhismihii mujtamaca societyga awal ahaa yani beeraleyda ama dad maaragtay xoolo dhaqataa magaalooyinkii baa lasoo galay warshadaa yimid sanaacad baa ayaa yimid habkii dadku noolaayeen iyo dhaqaalihii baa isbedelay marka cilmigii iyo fikraddii marka hore ma isbedeleen dhaqaalihii iyo arrimihii nolosha mujtamaacigaana ma isbedeleen waxay taasi daqdi bay saartay dabcan in siyaasaddiina ay isbedesho marka boqorradii iyo churchkii wixii o dhan meesha laga saaray oo laga adkaaday adigu dhowr boqoloo sano gudahood horta marka cilmaaniyadda asalkeedu halkaasay ka timid